أحب الرياضة والملعب ومهما لعبت فلن أتعب. أحب الرياضة والملعب ومهما لعبت فلن أتعب. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkani waa janalka Xareed Media. waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha ee Xareed Media oo habeenada Arbacada iyo Jimcaha soo galayaan aad ka daawataan janalka Xareed Media. أحب الرياضة والملعب ومهما لعبت فلن أتعب. مهما ربحت فشيء جميل، إذا ما خسرت فلن أغضب. daawadayaal waa habeenimo Arbaca ay soo galayso 25 bisha labaad ee Febraayo sanadka 2020. qodobada aad ku daawan doontaan barnaamijka ciyaaraha ee channelka Xareed Media waxaa ka mid ah ka sheekeynta dhammaan 5 horyaal ee qaaradda weynta Yurub. waxaynu eegi doonaa horyaal walba kulamadii laga ciyaaray toddobaadkan, natiijooyinka ka soo baxay toddobaadka soo aadan kulamada laga ciyaari doono, sida loo kala hogaaminayo gool dhalinta iyo waliba caawinaada ayaynu barnaamijkeena ku faaqidi doonaa. horyaaladaas oo kala ah sida horyaalka English Premier League, horyaalka Isbaanishka, horyaalka Ligue 1 Faransiiska, Bundesliga Germany iyo waliba Serie A Talyaaniga. sidoo kale qodobada aad ku daawan doontaan barnaamijkeena waxaa ka mid ah hordhaca kooxaha Napoli iyo Barcelona, wax walba oo aad uga baahan tahay kulanka caawa ka dhacaya Talyaaniga ee UEFA Champions League. sidoo kale daawadayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa kulanka u dhaxeeya Bayern Munich iyo waliba Chelsea, kaas oo caawa garoonka Stamford Bridge ee Chelsea ku soo dhaweey doonta naadiga Bayern Munich. waa tahay daawadayaal, markaana waxaynu gudgalaynaa barnaamijkeena ka sheekeynta horyaalada ayaynu ku bilaabeynaa. horyaalka La Liga haddii aynu ku bilaabno ka sheekeyntiisa, kulamadii 25aad ayaa toddobaadkan laga ciyaaray, natiijooyinka ka soo baxay ayaynu markaan eegaynaa. Real Betis iyo waliba Real Mallorca waxay galeen 3 gool iyo 3 gool. Celta Vigo waxay gool iyo waxba kaga adkaatay Leganes. Barcelona waxay 5 gool iyo waxba kaga adkaatay Eibar. waxaa xusid mudan in ciyaartaas 4 gool la liyay kabtanka Barcelona iyo hogaamiyahooda Lionel Messi oo waliba gool dhalinta sii dheereystay. Real Sociedad waxay 3 gool iyo waxba kaga adkaatay Valencia. Levante waxay gool darciil badan biday naadiga loo magacaabo Real Madrid oo ay garaacday kadibna hogaanka lagala wareegay. Osasuna waxay 3 gool iyo waxba qasaare kala kulantay Granada. Alaves waxay 2 gool iyo gool kaga adkaatay Athletic Bilbao. Real Valladolid waxay 2 gool iyo gool kaga adkaatay Espanyol. Celta Cateve waxa 3 gool iyo 2 gool kaga adkaatay Sevilla. Atletico Madridna waxay 3 gool iyo gool kaga adkaatay naadiga Villarreal. markaan haddii aynu eegno kulamada 26aad sida loo ciyaari doono horyaalka La Liga, Real Sociedad waxay soo dhaweey doontaa Real Valladolid, Eibar waxay soo dhaweey doontaa Levante, Valencia waxay soo dhaweey doontaa Real Betis, Leganes waxay soo dhaweey doontaa Alaves, Granada waxay soo dhaweey doontaa Celta Vigo, Sevilla waxay soo dhaweey doontaa Osasuna, Atletico Bilbao waxay soo dhaweey doontaa Villarreal, Espanyol waxay soo dhaweey doontaa Atletico Madrid, Mallorca waxay soo dhaweey doontaa Cateve. balse kulanka la wada sugayeen wuxuu noqon doonaa El Clasico oo u dhaxeeya Real Madrid iyo Barcelona. Santiago Bernabeu ayaynu kulankaasi ka dhici doonaa toddobaadka soo aadan. kulamadaasna waxay ahaayeen kulamada 26aad. Real Madrid iyo Barcelona hogaanka ayay isku dhagan yihiin toddobaadkan, ayaga ayaa isku aadan daawadayaal. haddii aynu eegno gool dhalinta sida loo kala hogaaminaya, Lionel Messi Barcelona Argentine ayuu u ciyaaraa 18 gool ayuu leeyahay. Karim Benzema Faransiiska Real Madrid ayuu u ciyaaraa 13 gool ayuu leeyahay. Luis Suarez Barcelona Uruguay wuxuu leeyahay 11 gool. Angel 10 gool oo leeyahay Cateve u ciyaaraa. Lucas Perez 10 gool oo leeyahay Alaves ayuu u ciyaaraa. Roger Levante u ciyaaraa 10 gool ayuu leeyahay, iyo Moreno oo leh 10 gool oo Villarreal u ciyaara. haddii aynu eegno dhanka iyo waliba caawinaada sida loo kala hogaaminayo, Lionel Messi asiga ayaana horkacaya caawinaada 12 gool ayuu caawiyay. Barcelona ayuu u ciyaaraa. Rodrigo Valencia u ciyaara 7 caawin u sameeyay. Luis Suarez 7 caawin u sameeyay. Karim Benzema 6 caawin. Porto 6 caawin. Banega 6 caawin. Roberto Torres 6 caawin ayuu sameeyay. intaas ciyaartooy ayaa ugu sareysan dhanka caawinaada. haddii aynu halkaas kaga talaabno
horyaalka La Liga iyo waliba kulamadiisi markaan waxaynu u gudagalaynaa horyaalka dalka Serie A iyo waliba natiijooyinka toddobaadkan ka soo baxay iyo toddobaadka soo aadan kulamada laga ciyaari doono hadii aynu eegno kulamada 25aad ee Serie A ayaa toddobaadkan la ciyaaray Brescia 2 gool waxa kaga adkaatay Napoli Bologna gool waxay la gashay Udinese Spal waxa 2 gool kaga adkaatay Juventus Fiorentina iyo Milan gool ay ku heshiyeen Genoa waxa 3 gool kaga adkaatay Lazio Torino iyo Parma wala baajiyay Hellas Verona iyo Cagliari wala baajiyay Atalanta iyo Sassuolo wala baajiyay Roma iyo waliba Lecce oo ciyaarana 4 gool waxba Roma ayaa ku adkaatay halka Inter Milan iyo waliba Sampdoria la baajiyay intaas kulan ayaa baaqday ilaa 4 kulan ay gaarayaan sababaha loo baajiyeen waxa ay cudurka coronavirus ayaa waddanka Talyaaniga laga sheegay taa oo cimilada aan u saamixin in ciyaartooyda ay ku ciyaaraan hadii ayna eegno kulamada 26aad toddobaad soo aadan Serie A laga ciyaari doono Lazio Bologna soo dhabeey doonta Udinese Fiorentina soo dhabeey doonta Napoli Torino soo dhabeey doonta Milan Genoa soo dhabeey doonta Lecce Atalanta soo dhabeey doonta Parma Spal soo dhabeey doonta Sassuolo Brescia soo dhabeey doonta Cagliari Roma soo dhabeey doonta Juventusna iyo waliba Inter Milan way iswajihi doonaan naadiyaasha hoggaanka ku tartamaya ayaa iswajihi doona cidii adkaata ayaa hoggaanka u xarid doonta walow Inter Milan kulan uu baaqo yahay Sampdoria iyo Hellas Verona way iswajihi doonaan Serie A-dana waxa wali ku sii raaxaysanaysa hoggaankiisa naadiga lagu magacaabo Juventus oo 60 dhibcood iska leh hadii aan eegno gool dhalinta sida loo kala hogaaminayo Ciro Immobile Lazio ayuu ciyaara 27 gool leeyahay Cristiano Ronaldo Juventus uu ciyaara 20 gool leeyahay Romelu Lukaku Inter Milan uu ciyaara 17 gool ayuu leeyahay saddexdaas ciyaartooy ayaa si aad u tartamaya sanadani hadii aynu eegnana horyaalada kale ee qaaraduweynta Yurub kulamada laga ciyaaray markaan waxaynu eegaynaa horyaalka dalka Faransiiska ee Ligue 1ka kulamadiisa 26aad ayaa toddobaadkan laga ciyaaray Nice iyo waliba Stade Brestios 2 gool galeen Metz waxa 2 gool waxba kaga adkaatay Olympique Lyonnais Olympique waxa 3 gool kaga adkaatay Nantes Angers waxay gool waxba kaga adkaatay Montpellier Lille waxay 3 gool waxba kaga adkaatay Toulouse Dijon iyo Monaco gool galeen Strasbourg iyo Amiens every ku heshiyeen Saint-Étienne iyo waliba Stade Reims gool galeen Rennes waxay 2 gool kaga adkaatay Nimes PSG iyo waliba Grenadisna 4 gool PSG ayaa ku adkaatay hadii aynu eegno kulamada xiga ee toddobaad soo aadan laga ciyaari doono horyaalka Faransiiska ee Ligue 1ka Nimes waxay soo dhabeey doontaa Olympique PSG waxay soo dhabeey doontaa Dijon Amiens waxay soo dhabeey doontaa Metz Toulouse waxay soo dhabeey doontaa Rennes Stade Brestios waxay soo dhabeey doontaa Angers Monaco waxay soo dhabeey doontaa Stade Reims Montpellier waxay soo dhabeey doontaa Strasbourg Nantes waxay soo dhabeey doontaa Lille Girondins waxay soo dhabeey doontaa Nice Olympique Lyon waxay soo dhabeey doontaa Saint-Étienne wali Paris Saint-Germain ayaa hoggaanka ku raaxaysanaysa wax isbedel ah kama dhicino iyada ayaa hoggaanka haysa goolalada ayna eegnana Ben Yedder oo Monaco ciyaar 16 gool leeyahay Mbappé ayaa 16 leh oo PSG u ciyaara Dembele 14 gool ayuu leeyahay Lyonnais ayuu u ciyaara Neymar 13 gool ayuu leeyahay PSG ayuuna u ciyaara hadii aynu eegno dhanka iyo waliba caawinada Angel Di Maria oo PSG u ciyaara ayaa hogaaminaya 14 caawin oo sameeyay Court oo u ciyaara Stade Brestios 7 caawin oo sameeyay Slimani oo u ciyaara Monaco 7 caawin oo sameeyay Neymar PSG 6 caawin ayuu sameeyay Econe 6 caawin oo sameeyay Lille oo u ciyaara Thiago Mendes Olympique Lyonnais oo u ciyaara 6 caawin oo sameeyay Simon oo Nantes u ciyaara 5 caawin oo sameeyay kuwaasna waxay ahaayeen dhankay waliba caawinaada hadii aynu markaan u gudubno horyaalka dalka German kulamadiisa 23aad ayaa toddobaadkan laga ciyaaray Bayern Munchen 3 gool iyo 2 gool waxay kaga adkaatay Paderborn Mönchengladbach waxay gool la gashay Hoffenheim Freiburg waxa 2 gool waxba kaga adkaatay Fortuna Hertha BSC waxa 5 gool waxba kaga adkaatay naadiga Cologne
Werder Bremen waxaa 2 gool waxba kaga adkaatay naadiga Dortmund Schalke eber 4 waxaa 5 eber kaga adkaatay naadiga RB Leipzig Bayer Leverkusen waxay 2 gool waxba kaga adkaatay FC Augsburg Wolfsburgna waxay 3 gool waxba kaga adkaatay Mainz eber 5 waa tahay daawadayaal markan hadii aynu sii eegna dhankay waliba kulmada 24 ee todobaad laga ciyaar doono horyaalka Bundesliga dalka Germany Fortuna waxay soo dhabeey doontaa Hertha BSC FC Augsburg waxay soo dhabeey doontaa Mönchengladbach Borussia Dortmund waxay soo dhabeey doontaa Freiburg Hoffenheim waxay soo dhabeey doontaa Bayern Munchen Mainz eber 5 waxay soo dhabeey doontaa Paderborn Cologne waxay soo dhabeey doontaa Schalke eber 4 Union Berlin waxay soo dhabeey doontaa Wolfsburg RB Leipzig waxay soo dhabeey doontaa Bayer Leverkusen Werder Bremen waxay soo dhabeey doontaa Inter Frankfurt ayay soo dhabeey doontaa horyaalkaasna wili Bayern Munich ay hogaaminayso oo hal dhibic ay kaga haysaa naadiga lagu magacaabo RB Leipzig wax isbedel ahna kuma imaanin dhanka ay waliba hogaaminta goolalinta hadii aynu eegno Roberto Lewandowski ayaa 25 gool ku hogaaminaya Bayern Munich oo ciyaara Timo Werner oo ciyaaro RB Leipzig 22 gool leeyahay Jose Sancho Borussia Dortmund oo ciyaara 13 gool ayuu leeyahay saddex ciyaartoy ayaa ugu sareysa dhankii waliba goolalinta dhanka caawinaadda aynu eegno horyaalka Bundesliga Jose Sancho ayaa 14 caawin ku hogaaminaya Borussia Dortmund oo ciyaara Thomas Muller 13 caawin ayuu sameeyay Bayern Munich ayuu u ciyaara laba ciyaartoy ayaa ugu sareysa wilina waxaad daawanaysaan barnaamijka ciyaaraha channelka xareed meydana waad ka daawanaysaa horyaalka England Premier League ayaynu gordhow u gudagali doonaa ka sheekeyntiisa kulamada tobaad su'aada laga ciyaari doono iyo waliba kulamada laga ciyaaray natiijooyinka ka soo baxay daawadayaal markan waxaynu eegaynaa kulamadii laga ciyaaray horyaalka English Premier League natiijooyinka ka soo baxay kulamada 27 ayaa la ciyaaray todobaadkan Chelsea waxay 2 gool iyo gool kaga adkaatay Tottenham Burnley waxay 3 gool waxba kaga adkaatay AFC Bournemouth Crystal Palace waxay gool waxba kaga adkaatay Newcastle United Southampton waxay 2 gool waxba ku garaacday Aston Villa Sheffield United iyo Brighton gool ay galeen Leicester City waxay khasaaro gool waxba kala kulantay Man City Wolves waxay 3 gool waxba ku garaacday Norwich City Man United waxay 3 gool waxba ku garaacday Watford Arsenal waxay 3 gool iyo 2 kaga adkaatay Everton Liverpool waxay 3 gool iyo 2 gool kaga adkaatay naadiga lagu magacaabo West Ham United kulamadaas waxa ahaayeen kulamadii 27 ee todobaadka laga ciyaaray natiijooyinka ka soo baxeen daawadayaal markana waxaynu eegaynaa ka sheekeynta kulamada todobaad su'aadan laga ciyaari doono horyaalka English Premier League kulamadiisii 28aad la ciyaari doona Norwich City waxay soo dhabeey doontaa naadiga lagu magacaabo Leicester City sidoo kale Aston Villa waxay soo dhabeey doontaa Sheffield United kulankaasi waa u baaqday maadaama Aston Villa ay finaalka Carabao Cup la balansantahay naadiga Manchester City 1 Maarso Brighton waxay soo dhabeey doontaa Crystal Palace Newcastle United waxay soo dhabeey doontaa Burnley AFC Bournemouth waxay soo dhabeey doontaa Chelsea West Ham United waxay soo dhabeey doontaa Southampton Watford waxay soo dhabeey doontaa Liverpool kulamada kale hadii aynu sii eegnana Manchester City waxay soo dhabeey doontaa Arsenal asna kulankaas waa la baajay maadaama Manchester City iyo Aston Villa ay Carabao Cup finaalka ciyaari doonaan Everton waxay soo dhabeey doontaa Manchester United Tottenham waxay soo dhabeey doontaa Wolves ayay soo dhabeey doontaa kulamadii 28aad ay kuwaas ahaayeen todobaad su'aada laga ciyaari doono horyaalka English Premier League waata daawada markaan waxaynu eegaynaa kala sareynta goolalinta Aubameyang ayaa kaalin koowaad ku jira 12 gool leeyahay Arsenal oo ciyaara Jamie Vardy 12 gool leeyahay Leicester City oo ciyaara Aguero 16 gool leeyahay Man City oo ciyaara Mohamed Salah 15 gool leeyahay Liverpool oo ciyaara Danny Ings 15 gool leeyahay Southampton oo ciyaara Marcus Rashford 14 gool leeyahay Man United oo ciyaara Tony Abraham wuxuu ciyaara Chelsea 13 gool leeyahay Sadio Mane 13 gool leeyahay Liverpool oo ciyaara Calvert-Lewin wuxuu ciyaaraa Everton 12 gool leeyahay Jimenez 12 gool leeyahay Wolves oo ciyaara Sterling Man City oo ciyaara 12 gool leeyahay Harry Kane 12 gool leeyahay Tottenham oo ciyaara Timo Pukki 12 gool leeyahay Norwich City ayuu u ciyaara waata daawada markan waxaan eegaynaa caawinaada Kevin De Bruyne ayaa 12 gool caawiyay Man City oo ciyaara Alexander Arnold Liverpool oo ciyaara 12 caawin oo sameeyay Mahrez 8 caawin oo sameeyay Man City oo ciyaara Adama Traore Son Robertson David Silva
dhammaan ilaa ciyaartooy oo Firmino ku jiraan ayagana min 7 gool ay caawiyeen kala sareynta wili Liverpool ayaa hogaaminaysa kaalinta koowaad ay ku jirtaa kaalinka labaad waxa ku jirta naadiga lagu magacaabo Manchester City saddexaad Leicester xureysatay afraad Chelsea shanaad Manchester United ayaa soo fariisatay waata daawada markaan waxaynu ugu gali doonaa ka sheekeynta labada kulan ee caawa wareeg 16 UEFA Champions League laga ciyaari doono Chelsea ayaa caawa garoonka waxay ku soo dhaweey doontaa naadiga Bayern Munich Chelsea ayaa lugta hore ee wareeg 16 Champions League caawa la ciyaaraysa kooxda Bayern Munich kadib markii guul ay ka gaareen Tottenham dhinaca kale kooxda reer Jarmal ee Bayern Munich ayaa u safraysa garoonka Stamford Bridge iyagoo hogaanka u haya horyaalka Bundesliga kadib guul adag oo ay ka gaareen naadiga Paderborn ogeysiiska ciyaarta tartanku waa UEFA Champions League taariikhdu waa 25 February saacada ay dheesha baasba doontana waa 5 saac habeenimo xilliga geeska Afrika garoonka waa Stamford Bridge garsooraha waa Clement Turbin oo Faransiis ah wararka kooxaha hadii aynu eegno xidiga Chelsea Andreas Christensen ka soo ciyaaray 90 daqiiqo kulankii kooxdiisa 2 gool ay uga adkaa Tottenham sabtidii ayaa wajiga waxa uu dubnaa maaskaro injirka jugta ka difaaca waxa uuna ku soo bilaaban karaa kulankan Robin Loftus-Cheek ayaa taam u ahaa inuu keedka fadhiyo sabtidii laakiin Frank Lampard ayaa u fududeen doona laacibkan khadka dhexe inuu ugu yaraan daqiiqado kooban ciyaaro kulankan isagoo aan xil ciyaareedkii oo dhan ciyaarin Tammy Abraham ayaa dib u soo laabtay isagoo bedel ku soo galay qaybtii labaad ee kulankii dhawaa wuxuuna rajaynayaa inuu ku sii nagaado garoonka oo uu ciyaaro kulankan caawa Bayern Munich ayaa isku dayday oo ku guuleysatay saxiixa Hudson Odoi bishii Janaayo ee la soo dhaafay laakiin dhaawac muruqa ah ayaa uu garabka ka qabay ka uu ku seegi karo oo kulankan caawa Willian ayaa rajeynaya inuu ku soo laabto safka kooxda dhanka kale Bayern Munich waxa wali ka maqan laba ciyaaryahan Evan Perisic iyo waliba Nicolas Sule inkastoo kan dambe uu sare u sii qaaday soo laabashadiisa dhaawaca jilibka ah Javi Martinez waa la qiimeyn doona xaaladiisa waxaana rajaynaynaa inuu ka soo muuqdo waxa xooga daqiiqada ah kulanka ayaa la yiri macalinka kooxda Bayern Munich lama filayo inuu isbedelo aad u tiro badan ku sameeyo shaxdiisa safka hore oo uu jecel yahay inuu mar walba ku soo galo garoonka hadda Lucas Hernandez ayaa ku soo laabtay taam ahaanshihiisa iyo waliba Jeremy Boateng ayaa la filayaa inuu ka baxo kooxda baa la leeyahay xaqiiqooyinka ciyaaraha hadii aynu eegno kulankii ugu dambeeyay ee Champions League ku dhex mara labadan kooxood ee Chelsea iyo Bayern Munich ayaa waxa uu ahaa finaalkii 2012 markaas oo kooxda reer London ay ku adkaatay Rigoryaal 4-3 ciyaar lisku mari waayay gool waxaana uu kulankaasi ka dhacay garoonka Bayern Munich ee Allianz Arena afartii kulan ee hore ee tartamada oo dhan ee u dhaxeeyay Chelsea iyo Bayern Munich waxa la iska dhaliyay 17 gool taasoo celcelis ahaan ciyaar kasta la iskaga dhaliyay goolal dhan 4.25 Chelsea ayaa gaartay wareegga 16 Champions League 14 jeer 17 xil ciyaareed tan iyo 2003-2004 kaliya Real Madrid Barcelona iyo Bayern Munich ayaa ku faani kara kulamadaas ka badan waqtigaas si kastaba ha noqotee Blues ma aysan ka soo gudbin wareegga 16 tan iyo kala ciyaareedkii 2013-2014 Bayern Munich ayaa gaartay wareegga 16 Champions League xil ciyaareedkii 12aad oo isku xiga kaliya Real Madrid 23 kulan gaartay iyo Barcelona 10 kulan gaartay ayaa ka horeeya kooxda Bavarianka ayaa dhaaftay wareegga 16 7 kamid ah 8 xil ciyaareed ee ugu dambeeyay waxaana kaliya ee la reebay xil ciyaareedkii hore markii ay Liverpool ka ciribtirtay tartanka Chelsea ayaa badisay kaliya mid kamid 6 kulan ugu dambeeyay Champions League oo ay ku ciyaareen garoonka Stamford Bridge 4 barbaro iyo 1 gool daro halkaas kulanna ayaa gool 2 gool ah oo ay ka gaareen Lille bishii December ee la soo dhaafay macalinka Chelsea ee Frank Lampard ayaa 3 gool ka dhaliyay 4 kulan oo Champions League uu
ku wajahay Bayern Munchen isagoo ciyaaryahan ah wuxuuna sidoo kale gool u rogay mid ka mid ah rigorooyinkii ay guusha kaga gaareen kooxda Bavarianka finalkii 2012 weeraryahanka kooxda Bayern Munchen ee Roberto Lewandowski ayaa dhaliyay 10 gool xilli ciyaareedkan UEFA Champions League shaxda macquulka ah ee labada kooxood hadii aynu eegno Chelsea garoonka iska leh 3-4-3 ayay ku soo shartagi doontaa goolahaya Caballero 3 difaac waa Rudiger Christensen Azpilicueta qadka dhexe waxa camiri doono Marcos Alonso Kovacic Jorginho iyo Reece James Mount Giroud iyo Willian waa weerarka Bavarianka ama Bayern Munich hadii aynu eegnana 4-2-3 xal ayuu ku soo gali doonaa macaninkooda goolahaya Noe Bavard iyo Hernandez Alaba iyo waliba Davies qadka dhexe waa Kimmich Thiago Coman Muller Gnabry iyo waliba Roberto Lewandowski waata daawadayaal guntii gabagabadii barnaamijka la soo gaaray markaana kulanka ugu dambeeya kooxaha Napoli iyo Barcelona ayaa caawa isku wajihi doona garoonka San Paolo ee dalka Talyaaniga hadii aynu gudaha galno ka sheekeynta kulankani kooxaha Barcelona iyo Napoli oo caawa isku wajahaya garoonka Napoli kooxda Barcelona ayaa u safraysa dalka Talyaaniga si ay ula ciyaarto caawa naadiga Napoli lugta hore ee wareegga 16 UEFA Champions League kadib markii ay 3 kulan oo isku xiga guuleysteen horyaalka La Liga kooxda martida loo yahay Napoli ayaa sidoo kale ku riyaaqday socod xoogan dhawaanahan waxa ay diiwaan geliyeen 3 guul oo tartamada oo dhan ah si ay sare ugu qaadaan fursadahooda horyaalka Serie A iyo waliba Coppa Italia ogeysiiska ciyaarta tartanka waa UEFA Champions League taariikhdu waa 25 February 2020 saacada ay bilaabanayso dheesha waa 12 habeenimo xilliga Geeska Afrika garoonka waa San Paolo Felix Bridge oo German u dhashay ayaa dhexaadan doona wararka kooxaha daafaca kooxda Barcelona Gerard Piqué ayaa sheegay in arimaha garoonka ka socda aysan carqaladeyn doonin kooxda kulanka talaadada caawa lugta hore ee wareegga 16 UEFA Champions League taageerayaasha Barca ayaa ku mudaharaaday madaxweynaha kooxda Jose Maria Bartomeu intii lagu gudi jiray kulankii Sabtidii oo ay 5 iyo waxba kaga badiyeen Eibar kadib markii kooxda ay ku eedeeyeen inay khalkhal geliyeen baraha xiriirka warbaahinta bulshada ee kooxda daafaca dhexe ee Napoli Khalidou Koulibaly iyo Fernando Llorente ayaa labaduba seegi doona kulanka Khalidou Koulibaly ayaa dib ugu soo laabtay tababarka kadib markii uu ka yimid dhaawac muruq ah halka weeraryahanka Llorente uu xanuunsan yahay daafaca Kevin Malquit ayaa maqnaansho muddo dheer ah ku jira maadaama uu dhaawac culus uu qabo weeraryahan Luis Suarez ayaa ah mid ka mid ah 5 ciyaaryahan oo Barcelona ka maqan Ousmane Dembele Jordi Alba Sergio Roberto ayaa sidoo kale dhaawacan weeraryahanka cusub ee kooxda Barcelona ay dhawaan la soo wareegtay Martin Braithwaite ayaan diiwaan gashaneen inuu ciyaaro tartanka sidaas awgeed inkastoo uu kooxdiisa la safray haddana waxa uu daawan doonaa kulankan xaqiiqooyinka ciyaarta kani waa kulankii ugu horeysay ee tartan rasmi ah ee dhexmara labada kooxood labada tababare ee kala hogaaminaya labada kooxood ayaa mas'uul ka noqon doona kulankooda ugu horeeyay ee Champions League kooxda Napoli ayaa gaartay heerka bugbaxa Champions League markii 6 kulan oo ay ciyaareen waligoodna kama aysan gudbin wareegga 16 guushii ugu dambeysay ee ay Barcelona garoonkeeda kaga soo gaarto koox Talyaani ah wareegga 16 Champions League ayaa timid bishii Abriil sanadkii 2006 markaas oo ay gooli waxba kaga badiyeen AC Milan Gennaro Gattuso ayaana markaas ku sugnaa kooxda Milan haddana waxa uu Gattuso tababar u yahay Napoli Barcelona ayaa hal kulan oo kaliya guuleysatay 8 kulan ee ugu dambeeyay oo ay meel ka baxsan garoonkeeda ku soo ciyaartay heerka bugbaxa ee Champions League waxaana ay haysataa 2 barbaro iyo 5 guul daro halka guul oo ay soo gaareen waxa ay ka soo qaateen Manchester United bishii Abriil sanadkii 2019 markaas oo ay gooli waxba ugu soo adkaadeen 8 kulan waxay dhalisay kaliya 2 gool waxaana laga dhaliyay 17 gool
wadarta guud ee labada gool oo uu dhaliyay Lionel Messi shantii kulan ee uu ciyaaray xilli ciyaareedkan wareegga gurubyada Champions League wuxuu ahaa heerkiisii ugu hooseeyay muddo 10 sano ah. kooxda Napoli ayaana la garaacin lixdeedii kulan ee ugu dambeeyay oo ay ciyaartay tartanka UEFA Champions League. sidoo kale kooxda Barcelona ayaana iyadana la garaacin lixdeedii kulan ee ugu dambeeyay oo ay ciyaartay tartanka UEFA Champions League. labada kooxoodba way isku dhagan yihiin lixdooda kulan ugu dambeeyay ee ciyaara Champions League lagama aan adkaanin shaxda macquulgalka. haddii aynu eegno labada kooxood Napoli 4-3 ayay ku ciyaari doontaa. goolhaye Ospina, Rubi, Maxinovic, Manolas, Lorenzo, Zelensky, Deni iyo Rose. weerarka waa Insigne, Martinez iyo waliba Politano. Barcelona waxay ku ciyaaraysaa 4-3. goolhaye Stergan, Semedo, BK, Lenglet, Firpo waa difaacyada. De Jong, Busquets iyo Arthur waa qadka dhexe. Messi, Griezmann iyo Fati waa weerarka. natiijada ka soo baxdana waynu arki doonaa daawadayaal. guntii gabagabadii barnaamijkeenana waynu isla soo gaarnay. guud ahaan daawadayaal waa inaga inta barnaamijkii aad kala socoteen Xareed Media. intaan ku kulmi doona barnaamijkan kiisa xiga waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. حب الرياضة والملعبة ومهما لعبت فلن أتعبا